dhegaystayaal iyo daawadayaal ku soo dhowaada sheekadeennii xiisaha badneed oo aad kala socon jirteen beejka MCM Cukaash aan ku leenahay barta YouTube-ka iyo TikTok-gaba. qisadan waxaa qoray qalinka u qaatay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Cukaash. qisada waxay ku bilaabanaysaa sida tan. qisada magaceeda waxaa la yidhaahdaa burburkii qoyska ma ku liibaantay. waxaan ahaa nin yar oo riyo badan lahaa. markii aan guursaday nasteexo waxay ahayd gabar i fahamtay. codkeedana wuxuu ahaa mid aad u deggan, indhaheedana waxaa ka muuqda xishood, waxayna nafteyda gelisay degganaansho aan hore u aqoonin. noloshayda waxay ka bilaabatay meel aad u hoosaysa. waxaan la degay guri kira ah oo aanan wax badan oolin marka laga reebo galkaceel rajo aan ku dhisnay anigee nasteexo. waxaa mar walba lahaa yool inaan noqdo aabbo fiican, shaygii ugu wanaagsanaa, iyo inaan reerkayga yar ka dhigo mid dhisa mustaqbal wanaagsan. waxaan u shaqaynayay si adag maalin iyo habeen si aan u daboolo baahida reerka. nasteexa waxay ahayd guri joogto gacanta ku haysa carruurta, u adkaysanaysay korinta carruurta iyo daryeelkooda. aana cid kale la garab istaagin ama aanan la qaybsan jirin howsha guriga. laakiin wuxuu wakhtiga socdo waxaa igu bilowday cillad si qarsoodi ah oo ah inaan noqdo qof aamusan, walwal badan dareemayo, marka qaarna xanaaq fudud ayaa wejigay ka muuqan jiray. shaqadana waa iskaga soo tegay. waxaan dareemayaa cadaadis, noloshuna waxay igu ahayd mid aad u adag. qofka guriga aan u imaanayay waxay ahayd nasteexi carruurtayda, ayagana qalbiga wuxuu ahaa mid ka daboolan, mar walbana indhaha uma dhammaystiri jirin. nasteexa waxay bilowday inay dareento inaan ka fogaanayo wakhtiyadana qaar aan guriga joogana aanan cidna aan la hadlin ama aan wada sheekaysan jirin. waxaan eegay teleefonkaygii ama waxaan iska seexanayay anigoo iga muuqdo daal aad u badan. mararka qaar waxaan iska aamusi jiray ama waxaan lahaa hadda daal baa iga muuqdo, fadlan io ogolow inaan sii nasto oo aan xoogaa jiifto. marba marka ka dambaysay isfahamkii naga dhexeeyey wuu sii yaraanayay. carruurtana waxay dareemayeen kalinimo. gurigii farxadda lahaa wuxuu isu beddelay meel aamusan oo culas saaran yahay. habeen ayaa waxay igu tiri gabadhayda ama xaaskayga oo ilmaynaysa, ma garanayo haddii aan weli ahay gabadhii aad jeclaan jirtay. waan ogahay inaad dadaalayso, laakiin qalbigayga wuu qalalay ama wuu dareemay daal badan. ma dareemayo jeceylkii, ma dareemayo jiritaankeennii hore iyo furfurnaantaadii hore. waxay igu dhalisay inaan keligay ilameeyo. ma ii sheegi kartaa waxa aad isku beddeshay? hase ahaatee erayadaas waxay iga dhigeen mid aan awooddiisii aan uga jawaabi waayey. isla markaasna waxaan ahaa mid iska inatiraayo wax ka guuxayo qalbiga nasteexo. haddana iima muuqan inaan wax beddeli karo. sidaa ay tahana waxaan isku dayay muddo bil ah ayaan dadaalay. waxaan u keenay ubax iyo waxyaaba ay ku farxaan carruurta si aan wakhti ula qaato carruurta iyo xaaskayga. waan la sheekaystay, laakiin naxariistii hore waxay ahayd mid aan la soo celi karin. xasuustii horena waxay ahayd mid idhaawacaysa. ma aysan sii socon xaaladdii aan bilaabay muddo bil ah, balse nasteexo ugu dambayn waxay dooratay inay ka tagto guriga. waxayna igu tiri, kuma necbani, laakiin jecelkeennii hore kuma noola agtaada. meel aan naxariis jirinna waan ku daalayaa inaan sii joogo. carruurtaydii ayay hore u sii kaxaysatay. habeenkii guriga keligii ayaan jiiftay. hase ahaatee waxaan ka jiifan waayey codkoodii, qosolkoodii. waxaan dareemay murugo. dhammaan wax walba waxay ii noqdeen xasuus inaan ku noolaado. sawirrada derbiga ku dhegganaa waxaan isku dayay inaan ka fujiyo. gadaal ayaan u jeestay si aan u jiifto, laakiin qalbigaygii weli wuxuu u jeedaa halkaas. mararka qaar waxaan fiiriyaa muraayadda si aan isku weydiiyo, adiga ma waxaad tahay ninkii qoyska dhistay, mase waxaad tahay ninkii burburiyey qoyskiisa?
weli waxaan maqlaa codkii nasteexo oo ay leedahay ma og tahay qaladku wuxuu bilowdaa marka aad iska aamusto. ugu dambeyn qisadani waxaa gunaanad ahaan uu uga dhigay qoraalkan kooban asigoo ku cabiray qoyska iyo xaaladda ay la kulmi karaan. wuxuu ku yidhi burburka qoyska ma ahan wax ku yimaada hal habeen, wuxuu ku bilaabadaa aamusnaan yar, eed aan la sheegin, qalbi yar oo fogaanaya. maanta waxaan bartay qoysku wuxuu u baahan yahay daryeel, hadal, dulqaad iyo dareen joogto ah, laakiin aqoontaas waxay timaadaa markii uu qofku uu la kulmo xaalado kala duwan. waa murugo weyn in la fahmo ama qiimaha qoyska la ogaado marka uu qofku noqdo xasuus iyo kelinimo uu ku noolaado. halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa sheekadii uu qoray maxamed cabdulaahi maxamed. waxaan idiin rajaynaynaa wakhti wanaagsan iyo nolol wacan.